gudoomiyaha xisbiga uu cid Faysal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa maanta shir jiraayad oo ku qabtay magaalada Nairobi kaga warbixiyay safarro uu dhawaan ku tagay wadamada Imaaraadka Carabta, Ingiriiska, Finland isagoo safarkiisa ka hadlayna waxa uu yiri waxaan jeclahay inaan in yar ka taabto magaalada safarkaygan aan ku joogay Nairobi aan ku imay maalintii Axadda ilaahay maadaama ilaahay nabaqadka noo keenay waxa weeye safarkan wuxuu daba socdaa oo safarkan ku tarnay London bishii February shirkii London waa ogeydeen shirka London waxa ka soo baxay qaraarka ka soo baxay resolution kaas qodob ku jira qodobka aleeyaa article 6 kaasoo cadeynaya in Somaliland ay wada hadallo furto Soomaaliya amba hata TFG-da amba cidii bedeshaatay marka safarkaas oo dhamaaday shirkaasi waxa u baahaned in la daba galo oo la micneeyo mowqifka ka taagantay Soomaaliland iyo say u aragto qodobkaas oo bulshada caalamka la gaarsiiyo jaaliyadaha reer Soomaaliland la gaarsiiyo mujtamaca kale Soomaalida la gaarsiiyo marka socdaal qaybkaas u daba socday markaan London ka tagaan waxaan u baxay wadanka Finland halkaas oo joogay waxoogaa oo dawladda Finland la kulmay jaaliyada Soomaaliland ka bacdi London baan ku soo noqday oo aan la kulmay magaalada dawladda Ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaaliyada Soomaaliland iyo jaaliyadaha Soomaaliya baan la kulmay ka bacdi Dubai baan imi Dubai wala socotaan iyadana in jaaliyada reer Soomaaliland la kulmay isla markaas aan la kulmay magaalada madaxweynaha TFG-da Sheekh Shariif tan hadda xasaasi daba socotaa arrimahaas baan u socdaa arrimahaas waxa weeye oo aan cadeyn dalka iyo dadka iyo wadamada oo cadeynay inay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya in loo qaadan in Soomaaliland midnimadii Soomaaliya ku soo noqotay ay tahay wada hadallo sidii loo kala si nabadgelyo ah la isku kala fasixi lahaa sidoo kale gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe waxa uu shirkiisa jiraayad ku sheegay in Soomaaliland aysan kamid ahayn maamulada laga sugay salaadiintooda inay soo xulaan baarlamaanka cusub ee yeelanaysa xukuumadda la filayo inay bedesho dawladda ku meel gaarka ay waqtigan ka arimisa koonfurta Soomaaliya waxa kale oo sheeginay inaan anaga aanay noo oolin inaanu salaadiin u soo dirno xamar soo magacaaba dadka noqon doona magaalada wakiilada ansixin doona dastuurka ku meel gaarka annaga waxa weeye saogtiin road map la sheegaya annagu qayb kuma ahayn Uganda lagu saxeexay lagu sameeyay dadka Uganda ku saxeexay labada Shariif iyo ra'iisul wasaare waqtiga kumaanu jirin wuxuu salka ku hayaa 2000 kii shirki ka dhacay magaalada Carta lagu sameeyay waxa la 4.5 kaasna kumaanu jirin waxa lagu xaqiiqay oo lagu qafoom gareeyay hadana garoowe wax loo bixiyay garoowan iyo garoowato labaasna kumaanu jirin marka anaga meel aanu ka soo galnaa ma jirto waxaan sheegayaa waxaan maqalnimo salaadiin ayaa xarka lagu hayaa oo jecel meeshii maadaan oo meesha wax lagu cunayo meesha wax lagu cuni maaye Soomaaliland baa lagu baabinayaa qodobka lixaad lagu soo diray shirkaas ayaa la doonayaan meesha laga saaro Cabdi Fataax Maxamed Cilmi Hon Cable TV Nairobi.